haddii guddoomiyaha la dhiibo oo haddana madaxweynenimo aan ku soo baxo dalka waxaan ku xidhaya laamiga qasmada caana qaar sharaaba qaar liina qaar magaranaysa babaya qaar nooc walba waxaan ku xidhaya qasnada waaweyn oo lacag doolar ku jirto qof walba salaadii kala baxo gold saaxiibayaal idilkiiba soo dhawaada halkan maanta waxa igula sugan abwaan Janagale oo runtii aad uga barateen majaajilooyin iyo sidoo kale gabayo iyo maansooyin kala duwan oo inta badan uu tiriyo kulay sheeko cajiib maanta inoo haya laakiin ka hor dhicmaayay ugu horeyn abwaan Janagalow soo dhawow bal maxaad u haysaa maanta asxaabta iyo sidoo kale dadweynaha kala duwan ee taageerayaashaada kugu xidhan aad iyo aad baad u mahadsantahay saxafi waana dhawahay runtii maanta waxaan doonayaa waxa aad soo sheegtay wax ka yar duwan oo magaranaysa inaan bulshada la wadaago waxa weeye in dhaweydba waxaan maqlaynay arrimaha siyaasadaha iyo waxba saay isugu malaaqnaa anna bariyahan miidiyaha kama soo bixin inta arrimaha wadayo de nin weyn oo siyaasi ah fankana aan ku jiray laakiin bada mar buu isbedelaa qofkii oo waxyaabo kale magaranaysa noloshaaba isaga baahan la isbedelo intaas oo dhow waxaad u fikiraysaa xaaladda dalka xaaladdan u fikiray markii aan wadi waayay waxa ka qaaday halkan maanta waxaan doonayaa inaan codsi uga diro madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi mudane madaxweyne anigoo ku hadlaya afkii dhalinyarada iyo kabahda aan ka tirsanay fanka labadaba waxaan ka codsanaynaa inaad maanta haddii ururadaas la furo oo ururadaas ay hir galaan oo la furo inkasta wax laalan ay yihiin haddii laakiin ay sidaa u dhacdo oo la furo inaad nagu soo wareejiso xisbiga kulmiye oo marka la eego taariikhdiisa da'ahaan aanan wax badan oo 6 sano aan ka badnayn aanan kaba weynin anigu oo xisbi maanta 20 jirsaday ah oo aan dhowr jeer nagu soo codeeyay xisbigaas waxa ka soo baxay madaxweyne Siilaayo waxa ka soo baxay intaas oo baarlamaan waxa ka soo baxay madaxweyne Muuse Biixi xisbi laga soo dhameystay oo sidii marka fikray anigu sidii udub oo kale haddii raggii hore ay gacanta ku sii hayaan de saaxadu ka baxaya marka xisbiga kulmiye anigu maadaama aan dhalinyaranahay anigu de ganacsi ma haysto lacag ma haysto waxaan xisbi ku samaysto calamaan iyo heeso ugu sameeyo xisbiga kulmiye wuxuu leeyahay heesii buu leeyahay astaantii buu leeyahay calaamadii buu leeyahay oo wax isku diyaarsan marka anigu ka dhalinyaro ahaan waxaan anfacaya xisbiga isku dhamayska tirana kharash bal nooga baahnayn inaad nagu soo wareejiso oo aanu dhig cusub ku shubno oo halka ka sii qaado ayaan madaxweynaha si sharaf loogu codsanayna oo xisbiga kulmiye maanta haddii aan lagu soo wareejino halkii hore laga sii hayo samtigisna dhici karta in wadadii udub marade marka xisbigaas aan doonayna lagu soo wareejiyo haddaan dhalinyarada nahay Janagalow codsiga madaxweynaha laga gaarsiiyo su'aal ka weydiiyay halkaas dadku inta badan waxay kaga barteen majaajilooyin sidoo kale arrimo qosol ku saabsan xisbigana kulay siyaasaddu waxay u baahan tahay qorshayaal iyo arrimo badan bal qorshayaasha kaaga yeela xisbigaas haddii lagu soo wareejiyo tusaale ahaan maanta madaxweynuhu raad xisbigi waa ka qorshayaasha aad maanta xisbiga waxay saamaxaytay horta fanka iyo siyaasaddu kama kala fogaadaan had iyo goor fanku soo ruwaad la dhigayo maaha ruwaayada marka la dhigayo waa la macaaneynaya qosol baa laga eegaya xigmad baa lagu dirayaa maxay gudbinaysaa baa lagu dirayaa fariin wacan baa lagu diray marka qofku qarankan wax oranaya halka horumariyo halka laamin ka dhis halka oo isku balayn baa gabigeedu marka waxa ku soo kordhinaya haddii guddoomiyaha la dhiibo oo haddana madaxweynenimo aan ku soo baxo dalka waxaan ku xidhaya laamiga qasmada caana qaar sharaaba qaar liina qaar magaranaysa babaya qaar nooc walba waxaan ku xidhaya qasnada waaweyn oo lacag doolar ku jirto qof walba salaadii kala baxo gold nimcaan saayaan aga uga dhigay hadii la dhiibo ee deewaanay garay dadka sharna wadka ka dhigaya ma maqashay niman kale saynisyahanadu markay waxay sheegayaan ama ixtiraacayaan dadku waxay waa nin waxa ka dhigi kara marka imka qaar baa oranaya bada aan leeyba ku xidhaya wax suuraga ku hor way waayeen marka anigu waxa u joojin maayo sidaan waxa hirgeliyo aad iyo aad baad mahadsantahay Janagale kaasina waxa uu ahaa abwaan Janagale oo ka sheekeynayay isla markaana muddo dheer u soo fakarayay bal siyaasadda dalka iyo xilligan halka ay marayso isla markaana cod soo diray madaxweynaha Soomaaliland daawadayaal inta mar dambe kulmi doono salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh